السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kusoo dhawaada STY channel. maanta waxaa sameynay waa digaag oo foorneeyay ovenkan geliyay oo maasha Allah crunch korka ka ah macaan. chicken kaas ayaan soo diyaariyay, waxa waa soo dhaqay, waa diyaar. xawaashka chickenka lagu darsado iyo halka waxaa ku jira waa chili iyo lemon, waa liin iyo chili la shiiday la isku soo daray. midkaani waxa weeyaan smoked paprika ama paprika kaliya waa la isticmaali karaa, iyo tandoori chicken. tandoori masaaladaas waa marka chickenka lagu darsadaa maasha Allah guduuday ka dhigay, iyo butterkaas ha isticmaala, butterka low fat ka isticmaala maasha Allah. so hadartan kan waxa waa maraq maajir waaye, wax yar maraq maajir ku darsana, cusbo qof kale ku darsan karaa, waa choice. so because chickenka waa marka ovenka la geliyo, we know chicken macaan oo healthy soo baxay, caafimaad leh, oo uma baahna chicken oo bisil iyo banaanka laga soo gado maasha Allah. hadda wixii dhan meel hal qaadadan ku daraayo waa qaadada yariista ah oo shaaxa oo u jeedin sokorta lagu darsado. so chickenkii ayaan dhex gelin doonaa intaas. so wax saliid iyo waxas kuma darayo si aan micnaha butterka la isticmaalina moogta. so butterka waxa uu rabaa inuu jilicna ka dhigo, soosna ka dhigo, soos u yeelo. marka hadda waxa isticmaalaa plain flour kaas, burka plainka ah, hal qaada ah. chickenkii xawaashkana haddaad doonto xawaashka waa ku dhex qasi kartaa marka hore, halka qaada markaan ku darayay, laakiin aniga bacdaana ku ridaa si fiican ugu luxaa. si waxa uu rabaa because chickenka kama ana fiiqin skinkiisi, because waxaan rabaa inuu iga guban oo dabka xigsado. skinkii dhana marka burka markii lagu waxeeyo wuxuu noqonaa crunch waba maba la fahmaa inuu skin lahaa in kale. maasha Allah VIP chicken ka soo bixi doona meeshaas. digaag dadka jecel maasha Allah they will enjoy aan ku dhahay. marka bacdaas ayaan almuuniyan saarana. almuuniyanka waxa u saara marka riisinka waxa waaye ma rabno in birta oo butterkan ku daraa oo ku soo dhalaalin doona, ma rabno birta inay naga halowdo. hadhoodi almuuniyanka iska qaade, birtaada waa ku nadiif, way ku dhaqanta, uma baahnid ina ka chickenka xoqdo ama ka fijisid. so maasha Allah hadda ovenkan gelina waa soo dhalaali doona butterka, waa inaan soo dhalaaliya maasha Allah. soo dhalaaliya waa kaas asagii hadda soos ah. then chickenkii aan dhigdhigaynaa, markaas ovenkan geli doona. markuu waxa karinay ilaa qadar hada nus saaca 15 ma daboolis korkiisa. hadda sidaas ku gelinay 15 daqiiqo. then 15 daqiiqo kadib soo bixinay, hadda dhinac kale u gadinay 30 daqiiqo 180 degree aan isticmaalaa, electriga isticmaalaa. so maasha Allah hadartan sidaas oo chicken macaan oo crunchiyo walaa qatar maasha Allah ku dhahay. dadka dhan ilmaha qof kasta uu jecel yahay yummy. hadda ovenkan geliyay maasha Allah 15 daqiiqo kadib dhinac kale ayaan gadi doonaa. hadda waa kana 15 daqiiqo kadib hoos ku soo bislaaday iyo kor maasha Allah. laakiin hadda waa inaad gadisaa qasab si oo sooskii maasha Allah si qatar ugu soo baxo, oo chickenkii oo chicken adag kaaga noqonin. saas uga gadiyay. haddana waa ku celinaa 15 daqiiqo kale, 30 daqiiqo enough maasha Allah. waa kaas chickenkana normally ama kaligiisa cuni kartaa, hadaarta bariis qofka soo doono dada kaligiis ku casheeyaan. hadda waxaan saaray waa soo bixiyay wuu bislaaday, almuuniyan kala kor ka saaray. almuuniyanka waxa u saaray chickenka because markaas sameynayna ma daboolnayn, waa kaasisi si oo chicken qalal nooga noqonin oo maasha Allah saas u kala soo socdo adiga macaan. marka aniga waxaan ku darsanaa wax yar oo salaatada sanko lagu cunaa maasha Allah yummy, sidiisana lagu cuni karaa. so sooskii marka waa kaas, sooskaas oo butterka iyo chickenka ka soo dhashay maasha Allah. wallahi rootiga qajajaca ah dadka yaqaan French rootiga dheer. like and subscribe. thank you so much. inta already subscribe dhahda mahadsantiin, intaan dhihin please next video la socotiin subscribe and like. thank you so much and share. waa mahadsantiin.